qurxoon laga dareemayaa xeebta Berbera ay dhawaanahan u dalxiis tagaan dhalinyarada waxaana warbixintaas nooga soo diyaariyay wariyaheena Faysal Yuusuf Kacaan. magaalada Berbera oo laga dareemayo horumar aad u fara badan ayaa waxa uu dalxiis yimaada kumaan dhalinyaro waqtigooda ku qaata maalmaha fasaxa iyo jimcayaasha iyo khamiisaha iyo sidoo kale maalmaha ciida. magaalada Berbera oo magaalo xeebeed aad u kulul oo dhacda gacanka Carbeed waana magaalada xarunta waa ganacsiga Soomaaliland ee waxyaabo fara badan ka dhoofiso sidoo kalena ka soo dejiso waxyaabaha lagu sameeyo dalka gudihiisa. dadweynaha u tiro badan oo ku kala yimaada gobolada iyo degmooyinka oo waqtigooda ku qaata xeebta dheer ee Berbera gaar ahaan Batalaale ayaa telefishinka caalamiga Royal waxa uu ka wareystay dalxiiska damaashaadka iyo waliba farxad ay ku qaadanayeen magaalada Berbera gaar ahaan xeebta Batalaale. magacaygu waa Suweer Cabdilaahi Ismaaciil waxaan ka imid magaalada Hargeysa xeebtan iyo badan waxaan u iibsaan dalxiis tago waqtigeygana aan ku qaato oo wandhaygaasaan fasaxay markaa fasaxa waxaan jeclaaday inaan ku qaato xeebtii magaalada Berbera anoo soo safray magaalada Hargeysa waxaan imid 8 subaxnimo ilaa haddana waan joognaa markaan waqtiga mooyaane intii salaadaan ku maqnaa mooyaane intii kale waan joogaa wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan soo noqdo xeebtan aad in muddaana ku nool ku caqliyaysta kuna ganacsaday wallahi horta baddu waxna macaanta iyo maastadka reerkiisa maadaama inuu macaantiyo inta kale ma soo xaadirno ma nimaano laga jibcayaasha reerkiisa ay maartay way soo qadinay waxaan gobolada kala dheerna weeyaan faanteen marka waxaan soo dalxiisayaasha iyo inta kale gobolada kale buu ku soo dhaweynaa magaalada. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Royal.